فريق ما قلنا ما أنت فريق ما قلنا سعادة فريق ما قلنا سبرايز ما أنت فلانين تودين من أنك تصوبها هل كاين شكرا يا حد يمكم عارفين يا إنها يا ما أنت مرسل موسى واي عمر الكلام كيف تيك توك يا تيك توك كيجا أصحاب تيك توك قايم شفتوا دوا سلامية وحلية فلوده ده على السين ما يكلم فلوده تابع كله ما شاء الله هذا أي جديد ما أنت واشدنا هاي أنا قلت الفنانين ما أنت حكمنا لنا هاي رجل الفنانين تسوي ويننا هذا نارير جيزة مبانتين هل كان قال الصوت فلو بديا حبل أنا كده صوت دوبنا أنت كلنا أدومر كبريس سلام السلام يا كلو أنت لو جوجا أنا قصان فنان لجن ما قاعد معها أنا قصيرة يا ما شاء الله وأمشي فريق بقنا هو وين أخويا أنا فريق بقنا maxkamad aad ku aragtid inankaaga warqad aad ku aragtid maxkamadda ka soo gooso maxkamadda markay tagtana waxa lagu raada orod warqad CID da ka soo qaado CID da marka tagtana waxa lagu raada fax baa laga hordiray warka horeysa warqadii iyo tag markay ka dhamaatay ay tagto hadana madheera dib gaadhi u gargaraysatay madheera tagtana waxa lagu raada oo warqadaadina may soo gaadhin orod ka tag warqad kala soo gooso waxa saa loola dhaqmaya waa hooyada Cabdimaalik dhashay fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdeg ah oo aad ku faraxdo ilaahay ku siya nagana warar xaqiiqa ah naga helaysaa sidaad halkan ku aragto waa fanaanada caanka ah Khadra Silimo iyo Mursal Muuse oo show meel ku wada qabanaya warkii horeba war soo dhaaf sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa fanaanada caanka ah ee Ugbaad Aragsan iyo Qabar Sugaani oo iyana meel show ku wada qabanaya warkii horeba war soo dhaaf waa la isku soo noqon wixii nool adduunyada sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa abwaan qanciye oo lagu xiray magaalada Burco isagoo karbaashay maalmo dhaxdaasa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo saaka salaadii hore 10 subaxnimo lagu xiray magaalada Burco midna ku handhare midna ku hirsho sidoo kale halkan waxaad ku aragtaa Farxiyo Fiska iyo waxa weeyaan in Mursal Muuse oo halka ku dhigay iyo fanaaniin fara badan oo halka ku kulmay muuqaal horeerin baahinay muuqaalkan ayuu daba socda waxaan idin sidaa maanta warar yaa badan fanaaniin hore isu furay oo meel show ku wada qabanaya waa markii ugu horeysay geeyiga Soomaaliyeed ka dhacdo Mursal Muuse iyo Khadra Silimo oo aynaan arag iyagoo masrax soo wada furay siday intay isqabeen kadib war cusub baa soo galay magaalada Qabar Sugaani iyo Ugbaad Aragsan oo baraha bulshada isku shawaafeeyay oo ugu dambeyn masraxa ayay soo wada taagi doonaan maheesihii karbaashka ahaa ayaa dib la isugu bilaabi doonaa fanaaniin badan oo reer Shabuutiya ayaa ka qayb galaya halka waxa ka mid ah fanaaniinta reer Hargeysa ee ka soo qayb galaya Maxamed Cirro waxa kale ka mid ah Xamti Galgacal waxaan sheegaa in Xamdi Biran oo reer Muqdisho ah waxa kale ka mid ah fanaaniin badan oo xidigaha geeska ka mid ah haddaba wararka ay dadku xiiseynayaan iyo faarta laga soo dhex qabanayo ayaa ah jadwalka ama boorka la soo dhashiyay waayo toro Qabar Sugaani iyo Ugbaad Aragsan ayay dadku weli u qaadan la'yihiin inay masrax soo wada fuulaan oo nolosha mar isugu nacba adduunka balse dib u heshiiyey Khadra Silimo iyo Mursal Muuse oo sanado dheer kadib aan masrax isugu iman ayaa markan hotel Balaas oo ku yaala magaalada Hargeysa habeenka 25ka bishan ku guda shirno toos baad wala socon doontaa fanaaniin fara badan oo aad xiiseynayso inay maruun indhaha u qabtaan iyaga oo masraxa wada taagan oo heesta lantaaliya wada qaadaya waa sababta waxa weeyaan showgan uu noqon doono kii ugu xiisaha badnaa ay hore ay aan abid uga dhicin magaalada Hargeysa intaynaan barnaamijkeena u gelin Hargeysa ku saabsan iyo fanka war yaa badan baan halkan kaaga wada Cabdimaalik Muuse Cildoon Waraashi oo war sira soo baahisay waxay tiri
hooyaday ama cabdimaalig hooyadii way dhiban tahay maanta oo naxdin waxay naxdin iyo waxa weeye qiso xanuun badan murugo waxa weeyaan kaalay waxbaa haysta gabadhii hooyadii cabdimaalig lugooya ku dhacday bay leedahay waxay tiri waxaan doonayaa inaan inankayga soo arko cabdimaalig waxa lagu ordo meel hebla warqad ka soo qooso waa lay soo celiyey haddana meel hebla waa lay warwareeshay 10 xafiisoo kala duwan waa sida gabadhan leedahay ilaahay bay naga oge waxay leedahay aakhirkii waxaan tegay mandheera oo halku ku xidhan yahay oo aanu sii socday saacad iyo dheeraad oo weliba waxa weeye dee wadgararsa halku ku yaalo markaan meeshii tegay waxay u yidhaahdeen baa laydhaa warqadaasi walaalnimay soo gaadheene dib u noqo oo meel hebla ka doon warqada kolley dalka sharci baa ka jira inay shuruudahaasi isyara dhaadhaafeen oo islaantu adkaysan weydana waa wax dhici karta balse hooyada soomaaliyeed ee dhibanaha ah iyo inankeeda uu xidhan yahay cabdimaalig muse ordoon ayaa weli lala-yahay inaan la soo daynayn oo aan xukunna la saarin waa war naxdin badan runtii ilaahay kaa soo daayay ayaan ku leeyahay marna wuu heli doonaa xorriyadiisa waayo dad badan ayaa dushiisa ku noolaa uu ku qadan jiray uu ku quraacan jiray uu ku cashayn jiray war kaloo yaa badan baa kuu hayaa abwaan qanciye oo aynu ogeyn inuu maalin dhoweyd xataa dugsiga abaarso isugu laabay gabay waxa weeye karbaasha muusoo mas baa tahay iyo mulucyo waaweyn iyo halqas iyo abeesiyo waxaa tahay masoosaad ninkii soo saaray buu ahaa muusow mas weynayo waxaa tahay abeesiyo halqas iyo masoosaad waa intaa lagu qabsaday abwaan qanciye midna ku handheer midna ku heshoog baa lagaga dhigay saaka gurigiisa lagala baxay gabigan wuxuu tiriyey 10 saacadood ka hor balse xalay oo dhan waxa weye korkaa lagala socday saaka salaadii hore ayaa lagu waabaraystay oo la xidhay abwaan qanciye waxaa kaloo lagu haystaa abaarso ayuu gabi ku karbaashay xarunta dhaqanka ee Hargeysa wadadu cabdimaalig maray buu maray waxa weeye ninkaa waxa weeye waxa lagu xidhay magaalada Burco saaka haddaba sidaad halkaa ku aragto waxa weeyaan abwaan qanciye oo isna xabsiga magaalada Burco loo taxaabay sidoo kale waxa halkaa aynu maanta ku soo bandhigaynaa muuqaalka farxiyo fiska iyo mursal muuse ay baahiyeen ee baraha bulshada qabsaday waxa weeyaan muuqaalkan wuxuu hordhac u yahay showga lagu qabanayo magaalada Hargeysa ee fanaaniinta faraha badan ay isugu imanayaan ilaa 30 fanaan haddaba fanaaniintan ayaa waxa weeye markii boorka la soo dhashiyey waxaa ka soo dhex muuqday fanaaniin hore isu furay oo ay ka mid yihiin mursal muuse cumar iyo khadre cabdisaliimo oo masraxa isu soo taagi doona iyagoo heesta taaliya wada qaadaya waxaa kaloo dib indheheena u arki doonaan qamar sugaane iyo ugbaad aragsan oo mar kale masraxa isu soo taaga lamaanihii qarniga lamaanihii adduunka mar isugu shicraa ee dadka Soomaaliyeed ay ku daya shireen runtii been maaha dad badan baa odhan jiray waa leeliya qaysta Soomaalida balse maanta carafkuba sad weeye imaanku waa side waa la kala heeday waxa weeye kor halkaa waxa ka soo muuqan doona Yurub Genyo fanaaniin fara badan Maxamed Cirro Bakaal iyo weliba Ifraax Hargeysa ninka waxa weeye musicianka ee balaragsan qaba waxa kaloo goobta iman doonta gabadha qamar sugaane oo ka qayb qaadan doonta waxa weeye xafladaas ama bandhig fareedka loogu magac daray kun habeen iyo habeen waxa kaloo goobta ka soo muuqan doona fanaanada caanka ee farxiyo fiska oo abaanduulo u ah dhammaan waxa meesha maraya wararka yaabka badan ee meesha ka soo baxaya ayaa waxay dadku sheegayaan goormeenu arki doona qamar sugaan iyo ugbaad aragsan oo mar dambe masraxa soo taagay warkii horeba war soo dhaaf waa la isku haystaa buu yiri wixii magaca ku bixiyay adigu ba aqlaad leedahay calanka fuudfuuso adigu ba aqlaad leedahay calar maxaa dhacay micnaha ka wada waxa weeyaan dad badan baan aaminsaneen inay masraxa soo taagi doonaan qamar sugaan iyo ugbaad aragsan mursal muuse khadra silimo oo hore nolosha mar ugu midowsanaa haddaba waxaan sugi la-aanhayba waxa weeyaan habeenkaa ina soo geli doona 25 bishan ku guda jirno oo aynu sugi la-aanhayba masraxaasoo dib u furma iyo wacdaraha ka dhacay iyo faarta halkaa laga soo dhex qabto waxaan ku leenahay naga mid ahow oo nagu soo